masalada labaad laakiin halkan lagu soo daray ee culimada iyagii baa kala hadiraan la yiraahdo su'aashan khalad weey culimadu isma dhahaane nin baa dhaha culimada halalaay xasan la yiraahdo xasan baa culimada halalaay yiraahdo laakiin ninka kale ii sheegay yiri culimada Soomaaliyeed halalaay dhigooda waa xalaal ii sheega waay ana wax nin uu galay iyo dambi uu nin leeyahay dadka lagama dhaxaysiyo lama wada saaro qadiyadaasi Sheekh Xasan bay khaas ku tahay isaga weeye culimada Soomaaliyeed oo dhan ninka dhigooda banaystay xalaalaystay isaga weeye oo cad oo ku faanay qaarna la laayay fatwadiisi lagu laayay in jidka ay ku jiraan Sheekh Xasan weeye cid kale oo la wadaagta anu ma garanayo culimada Soomaaliyeed ee kale qof radiyay waa khaldan yahay waa tabdiic hadalka bidca weeye mubtadic weeye waa arkay wayna badanta wayna jirtay wayna jiri doontaa laakiin nin waliba xataa tacmiimiyo la yiraahdo dantu waxay ku jirtaa culimada Soomaaliyeed oo dhan nag in laga dhigo isaga arkay maqal iyo muuqaal buuna ku duubayo hada waxana maaha wax laga sheegayana maaha wuxuu qalina ku qoray oo buu ku qoray cod maqal iyo muuqaalna uu ku duubay way waxaana ka dambeysay culimada Soomaaliyeed inay wada gaalayeen baa ka dambeysay maalin meel waxay soo socotaba inay wada gaalayeen baa ka dambeysay marka xuduudda hadalkii horana inay mas'alada xuduud iyo jawaabaha laga bixiyay daba socota waa u maleynaya wax badan oo Xasan sheegay baatil ay waajib tahay in la radiyo way waa baatil ay waajib tahay in la radiyo wax badan oo diinta iyo dadkaana waa cadow saa'il ah oo in laga difaaco ay waajib diina tahay waana nin inxiraafay oo madhabul khawarij qaatay oo umada in looga digay ay waajib diina tahay inta waxa dheer waa nin ka been sheegay diinta iyo culimada wax uu ka soo guuriyo umada in looga diga beentiisa ay tahay way waajib intaas oo dhan waa marxaati madoon intu waa marxaati madoon waxaan qarinayno hadda aan leexinayno gabinaynana maaha sadarteed codna waa ku maqasheen qoraal waa ku aragteen ninkaasi ala madhabil khawarij way dhiiga iyo diinta ummadana banaystay waana nin si kas ah oo bareer ah oo indhaadayga oo waana diid ah culimada waxa uu ka soo guuriyo been uga sheegay way marka Nairobi ku noqdo waxaan u balansanahay 30 qowl oo culimada oo 30 kaba uu ka been sheegay inaan projector ku qabto soo bandhigo balanaan qaaday way intaanan soo bixino laga yaabo idin soo gaari doontaa 3 sano ka hor baanan bilownay inaan kala hadalno niraano fahamkaaga aan isku khilaafno laakiin waxa culimada ka soo guuraysa ha ka been sheegi hadal dhaxda laga daro mid la isdaba mariyo mid la googooyo mid la isku kabo waan inaad moodaysid inuu harqaan la joogo halqaanka markuu dharka tolayo marada intuu jarjaro soo rabo u kabkaba waxaan keeni doonaa intaas oo qowl oo hadal uu isagu leeyahay oo dhaxda kaga daray hadalla kitaab kala go'an inta laga soo guuriyay la isku kabkabay oo la isku tolay 500 beejka ka soo gooyin beejka boqolaadna in ka soo goo ka 200 la in ka goo sadar dhaxdii hal hadal isaga dhig dhaqan iyo caado uu diin ka dhigtay way annaga waxaan qabnaa waxaasi biijmaaci ahli ilmi kadib iyo fisq way walidalika waxaan qabnaa inuusan marxaati gelin inuusan shaahid noqon karin sharcan waana cadayn doonaayo mas'aladaas waa ballan aan qaadayo insha Allah ta'ala bacda al-eid mas'aladan waan faahfaahin doonaa inta waxa dheer Xasan isaga in la badbaadiyo u baahan dad kala maaha madhabkiisa isaga diintiisa iyo dhiigiisa in laga badbaadiyo u baahan madhab Xasan madhabkiisa kaayaga maaha suuragal maaha muslim inuu noqdo ala madhabi isaga madhabkiisa hadii lagu dabaqo inuu muslim noqdo suuragal maaha waa mustaxiil hal tusaalaan insiin wuxuu yiri cidii tiri haday dan muslimiin ku jirto baarlamaanada waa la geli karaa waa gaal niman ictisaam leeyahay ku gaalay anu ictisaami hiri ictisaamku waa gaalo waxay ku gaaloobeen waxay dhaheen baarlamaanada haday dan muslim laga xaqiijinayo waa la geli karaa طيب بالصوت والصوره فيديو isagu uu duubay oo waxa yaala hadii dan muslim laga hirgelinayo baarlamaanada waa la geli karaa oo gal u leeyahay xiri baarlamaanada
haddii dan muslim laga hirgelinayo ha la galo waad ku qasban tihiin gaalnimana ma aha isagoo lehna way taal isagoo leh sidaa qofkii yidhaahdaa waa gaal la way taal markii la yidhi warxaaji waxaa dadka ku gaalaysay adigiina samaysay haye adigana ee kaarka isu dhig baasha qorta ay soo casaysay haddii la jiifiyaana bannaan aan ahayn diin tahay waa yimidoo wuxuu yidhi iyaga horta markuu ka hadlayay ictisaamka laba meelood buu wuxuu ku yidhi ictisaam wixii waxaa geliyey aqoon yari wey qiraa'o fiican iyo aqoon fiicanna baabulkufri waliimaan uma laha mar labaadna wuxuu yidhi nimanka ictisaam la yidhaahdo way aqoon yar yihiin waana cajam aay bay u joogtaa buu yidhi video wey hadago ma ahan ka hadlaya cod iyo meel baa ka soo qoraya maaha waa video wuxuu ku hadlaya uu soo galo wuxuu yidhi qofku jaahil hadduu yahay ka waran wuxuu yidhi annaga mawaanicda maanic aljahli wa maanic altawiil wa maanic mabay ictibaarin inuu maanic ninkii sabab ku dhaca waa noo gaal ayib intaasoo maaha cudurdaar jahli ma laha iyagii haa isagii markii la yidhi daadna waa tiriya bahasha dee si fiican kaarka isugu dhig wuxuu yidhi may aniga jaahil aan ahaa adiga hadda ayib intaasoo maaha cudurdaar jahli ma laha iyagii haa isagii markii la yidhi daadna waa tiriya bahasha dee si fiican kaarka isugu dhig wuxuu yidhi may aniga jaahil aan ahaa adiga hadda jahli cudurdaar maaha dhalahaa bisawt wasuura soo maaha may jahligaa kala labo dee la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan wey la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan wuxuu yidhi ninkii yidhaahdaa qaanuun ogolaada qalinka ogolaada waa gaaloobaya kibaadhana waa qaatay kibaadhada Kenya dastuurkeeda waxaa ku qoran warqadda aad saxiixayso inaad qaanuunka raacayso ood ixtiraamayso ood u hoggaansamayso ood ka qayb qaadanayso fulintiisa dadka kale waa ku gaaloobaan laakiin isaga kuma gaalooba miya waataan idin leeyahay isagaa u baahan diintiisa iyo dhiiggiisa in madhabkiisa laga badbaadiyo u baahan yahay isagaa inqaadinayo gurmad u baahan marka ruduudan la radinayo war wax kale ma ahe isagay dan ugu jirtaa marka laga soo tago ummadda dhiiggeeda iyo diinteeda in laga difaaca inay tahay oo cadow saa'il uu yahay muctadi ah markii taa laga soo tago isagaa naftiisa in laga inqaadiyo u baahan wuxuu u baahan yahay been abuurkan in laga badbaadiyo wuxuu u baahan yahay isgaalayntan in laga badbaadiyo wuxuu u baahan yahay dhiiggiisa uu isxalaalaynaya in laga badbaadiyo kuwuu madhabkiisa u fatwooday intuu dadka dhiiggooda ku banaynaya buu samaynaya intuu dadka ku gaalayana waa samaynaya laakiin ma garanaya aniga sababta laakiin haddaan xusnu dhanni sameeyo usuusha qawaacidda cilmiga iyo tabaawul kufri waliimaan baan u fadhiin uma fadhido akhris badan baan akhriyey iyo waxaan waan aqaanaa kala laba qadiyadood aan ku soo gabagabeeyay talabatul cilmiga iyo dadku laba qadiyadood yaa la isu qasin ninkan fanniga cilmigan waa laqbay yaqaanaa iyo maadada wuu yaqaanaa kala laba way fannigan waan laqbayn karaa kutubtiisana waan akhriyaa iyo fanniga cilmigan waan aqaanaa kala laba way nin waxaa jira kutubta xadiidka laqbay kara laakiin xadiid aan aqoon nin baa kutubta mustalaxa laqbeeya laakiin mustalaxan aqoon nin baa kutubta usuulul fiqiga laqbeeya aan aqoon maxaa lagu gartaa masaladaad ka hadlayso cilmiga waa silsilad isku xiran masaladan aad joogto maanta mid horena xiriir bay la leedahay mid soo socotana xiriir bay la leedahay ninka fanniga yaqaanaay masalada uu joogo inta baabay faraceeda iyo lugteeda gasha waa yaqaan saa darteed markuu ka hadlayo abwaabtii kaloo dhan buu tixgelinaya ninkaan aqoon laakiin hadba baabka iyo kitaabka uu laqbaynayuu joogaa sibuu wuxu jeexi baab kale markuu tago wuxuu soo jeexay ma oga wuxuu ka soo hadlay ee uu soo sharxayay sharxa meeshuu la maray ma garanayo waayo rawaabidta abwaabta ka dhaxaysa iyo funuunta culumtu isgahaan ma garanayo laakiin carabiga waa yaqaana waana soo laqbaystay boqolaal waxaa taqaanaan fiqiga laqbayaan laakiin fuqaha aan ahayn soo ma jiraan kuwa tafsiirka laqbayoon mufasiriin ahayn baa jira kuwa xadiidka laqbayoon muxadisiin ahayn baa jira culumta waan laqbeeyey waan aqaanaa maaha mid labaadna wax badan baan akhriyey wax badan baan aqaanaa maaha waxaa laga yaabaa 30 kitaab inaad akhrido laakiin aadan dhuuxin aadan garanaynin usuusha nin hadda laba nin oo nool haddaan sheega rag baa garanoo sheegi maaye nin baa wuxuu akhriyay kitaab leh almuwaafaqaat fi usuul shariica imaam shaatibi uu leeyahay
مقاصد الشريعة كان أفر مجلد واوي وي أفرتي مركو دميي isaga iga sheekay laftiisa baa waxaan taan fariistaan iyo talo maxaad ka fahantay waxaan ka fahmaan garan waayay waa ku celiyay waan akhriyay waan fariistay maxaad ka fahantay waxba nin buu u yimid waa qoon biday wuxuu niyo kitaabka laba jeer baad akhriyay aad waxa ma fahmin maxaa dhacay mustawaheedan gaarin kitaab mustawaha ka sareeya dareerisay ana maanta oo dhan kutubtan haddaan tasafuxoon aqriyo ususka cilmiga iyo qawaacida cilmiga ee hagaysa يا صحيح خالد كميزامي سنة أنا إيفدين واحد بدن وأنا أخري كرا لكن معناه واحد بدن أنا قارن معه وهذا ذلك كثرة القراءة ليس دليلا على كثرة المعرفة إن بدن بأنا أخري إن بدن بأنا قارن معه علمي جوان أخريين وأنا قارن معه إنك مشكلة دنا هي ستا نكى أفرس الفن كان اللقبية با يروي قارني موديان نبى أصول الفقه أخري با كتابك باللويس يا دحديس يا اخر كيسد العجلدي سدغيسته كله اضطراب يتناقض وي صارت اصول شيء مداخل شيء فروع ذا باب كان ما فهمسنه كتاب كان اخري مسائل بومري كتاب كم مسائل دوان رايي كغا دوان بو اخري كان سو يحيى بومري ما يقان لبدان كتاب الاختلاف سين waxay ka hadlayaan tan kan kitaabku joogo had barajaxa kitaabku la joogo burajaxa fiqhi bu akhri قواعد اسكوها يوم مسائل بضا انقل ايام باجر وابواب كلا دونا ما يقان ما انت كانوا جوغا قاعدتي نين كان ساسو قواساس ورجحي نين قاعدتي سكلو قبا كتابك سيما سو رجحي ورجحي فتودي سو قادن dad badan baa kutubta akhriya oo aqoonin funuunta dad badan baa wax badan akhriya oo wax badan garanayn marka ha u qaadanin hadii wax badan buu qofkan akhriyay la yiraahdo ama uu la qabeeyay inuu wax badan yaqaan ha u qaadan warka gunaanadkiisu علماء الناس رديانو حق الله عداي أو ليس نقدياي أدب كذا إلالينا أدب كإلالين يجي واجب كته أذيك يرنغ وحا إنوتال وحا نحر كيف فايدة عن قادرنا تنقيبت كلا دلكنا عدة ديك علماء بنايستي وحسان كليه اتكلوا لو ذاك تمارك طوائفتا كلا دون انت ليس ردي وحش ديك بنايستان ومعرك باكو كلي وارا أمادي dadkii uu diintoodiya dhiigoodana cadow saa'il oo in laga qabto ay waajib tahay way isagana in qaadin buu u baahan yahay hadduu sidaa ku socdo ilaahay ka in qaadininna isaga dhiigiisa isbanaysan doona mar baan ka hadli doonaa iyadana ballan qaaday silsilad la yiraahdo xasaan yukaffiru xasaan حسان على أصول مذهبه مستحيل إنه مسلم نقضه على أصولنا ما قالوا لكن على أصوله المسلم إنه نقضه مستحيل وما دعي كرته وإلا الدلتي فيانا بنا لتشوشيانا بنا ويو هذه كان ويكو قواتعنا ما قواتوا سبحان الله